راجعي Okay. waxaan jeclahay walaalayaal in aan qodobka saddexaad aan u gudbo cudurdaar meelihii aan gaari kari waayay ee dadka Soomaaliyeed ku nool yihiin wali aanan gaarin aan jeclahay in aan hadhow gadaal ka gaaro haddii Ilaahay yiraahdo waqtiga suuro gasho aniga saaxiibada kalaba waxaan rajaynayaa inay naga raali ahaadaan bal xilligan ku soo haday Ilaahay noo suuro galiyana ay arkaan gaar ahaan magaalada Muqdisho habeen saddexaadkii shirki iyo soo dhaweyntii xafladda weyneeda ka dhacday dowlad goboleedka Galmudug magaalada madaxda Dhuusamareeb yaan si fiican ugu jilciyay sababta aan u tagi lahayn Muqdisho oo runtii aan hadda goor si fiican baad u dhageysateen cidii aan dhageysanin waxay wali ku jirtaa YouTube-ka iyo baraha bulshada ka heli doonaan arintaas aan u tagi waayay waa arin aan ugu turahayo xukuumadda tabarta daran ee taageerada badan aysanin ee ku soo ururtay 300 albaab keliyata inaana uga darin maxay yeelay meeshaas oo tagaay waxay noqonaysaa albaabadaas inay xidmaan ma garan karno goorta dawlad kale dib loo soo dhisi karo ma garan karno cidda la keenayo waqtiga ay ugu qaadan karto ma garan karno waxa hata yaani waxaas oo dhan markaan qiimeeyay anoo ayaga laftigooda ana u hiilinayo u danaynaya ya waxaan soo bilaay iska joogeen inta waqtigoodu dhamaan hayaan ee bal hawga sii darin mid kale yaadan ku caan bixin adigoo dadka Soomaaliyeed u hiilinayo dal iyo dawlad raadinayo wax u dhisahayay yaan meelna yeena ka soo galin inaad wax burburisay meelna yaan noqdayeen ka soo galin baan uga jeeday xilligaan tagi doono mar horaan cadeeyay iyada waqtigaan tagi doono mar horaan cadeeyay anigoo wax personaalay oo ataag aan cidna ku sameeynin haddana ujeedada iyo hadafka aan u tagi doono uu yahay xilliga ayada gobolada oo dhan aan ku mari doono haddii Ilaahay yiraahdo dadka iman doona ee dawladda soo dadka Soomaaliyeed madaxda u noqon doona kuwa ay yihiin iyo noocaan u soo xulanayno
iyo inaan annagu soo cunanayna mar dambe ayna dhici doonin nin boorsooyin la yimaada ama koox iyo qabiil ururiya oo meeshu siduu doon naga yeelay inayna dhicaynin